hadda kadib markaad WhatsApp statuskaaga wax dhigayso ha ilaawin laba farsamo oo muhiima oon isleeyahay way ku anfacaysaa. haddii adigana farsamo kale oo dheeriya oo WhatsApp statuska lagu qurxiya aad hayso fadlan nagula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka dad badan ayaa ka faa'iidaysan doonay. sidoo kale ha ilaawin inaad nagu soo biirto oo muuqaalkan jacayl aad u reebto haddii aad ka faa'iido. marka ugu horreysa WhatsApp statuskaaga marka aad wax dhigayso hal sawir marka uu yahay ha ilaawin in aad sawirka marka aad geliso aad xagga sare u jiido adigoo hoos ka soo bilaabaya si aad u hesho WhatsApp status filters. filterskaas wuxuu kaa saacidayaa in aad hesho kalaro kala duwan oo aad ku qurxiso WhatsApp status imagekaaga inta aadan post garayn ama inta aadan dhigin ka hor. sidoo kale haddii aad doonto inaad sawiro badan hal mar dhigto WhatsApp statuskaaga ha ilaawin inaad farsamadan samayso. markaad WhatsApp statuskaaga soo gasho dooro meesha ay ku qoran tahay layout. taa waxay kuu suuragelinaysaa inaad sawiro badan doorato ilaa iyo 6 sawir ah. xagga hoose marka waxaad ka arkaysaa qaabkaad u dhigi lahayd sawirada badan ee aad soo xulatay. waxaad samayn kartaa sidoo kale in sawirada aad dooratay ee halka shaashad soo wada geli doona statuskaaga aad midka aad doonto intaad labadaada fardul geyso oo aad wax yar zoom garayso. markaad sidaa u xulato boom waad post garayn kartaa inta sawir aad doonto ilaa iyo 6 sawir ah hal mar. haddii aad farsamada ka heshay fadlan ha ilaawin inaad nagu soo birto oo aad sidoo kalena jacayl u reebto muuqaalkan lana wadaagto muuqaalkan saaxiibaad leedahay waa uu ka faa'iidi doonaa. anigoo kaaga mahad celina waqtiga qiimiga badan ku bixisa daawashada muuqaalkan inta laga gaarayo muuqaal xeeba idankii nabadgelyo.